dambeyntiina hay'adda xuquuqda aadanaha adduunka ayaa waxa ay ku baaqday in cunaqabateyn dhanka hubka ah la saaro dowladda dalka Itoobiya. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku baaqday in cunaqabateyn dhinaca hubka ah iyo xayiraado hor leh lagu soo rogo shakhsiyaadka ku lugta leh dagaalka Itoobiya si talooyinkaas ay gacan uga geystaan ilaalinta dadka rayidka xilli dagaalka halista ah ee Itoobiya oo ku sii xoogeysanayo gobolka Tigray. Human Rights Watch waxay sheegtay in warbixinada ka soo baxaya meelaha ay colaaduhu ka dhaceen ay ahaayeen kuwo argagax leh. Weeraradu waxa ay sababeen khasaare aan la soo koobi karin oo soo gaaray dad rayid ah oo ay ku jiraan shaqaalaha gargaarka oo bixinayay cunnada, burbur hanti iyo barakac baahsan, ayay tiri agaasimaha Geeska Afrika ee Human Rights Watch Latina Bada oo hadal kooban ka jeedisay xaaladda dalka Itoobiya. Talaadadii Addis Ababa waxay sheegtay inay qabsatay 3 magaalo oo ku yaala gobolka waqooyi ee Tigray, halkaas oo ay dagaalo ku dhex mareen xoogagga dowladda taageersan iyo TPLF tan iyo bishii Agoosto kadib markii ay burbureen xabad joojin hore loo gaaray. Walaaca caalamiga ah ee laga qabo dadka ku dhintay dagaalka ayaa isa soo taraya iyadoo qaramada midoobay ay ku tilmaantay xaaladda mid faraha ka baxday oo sababtay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah. qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan daawadayaal warbixin gudaha iyo daafaca caalamka naga soo gaaray anigoo durdur ayaan la socodsiinayay Juba TV oo aad kala socoteen kaliya war xigeen inta dib ugu kulmi doono nabad iyo warsan.